انتو اتي إلهي وتمادو ogow adaa u qoolan السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دما وايد ودا سلامي صاحبيال meel kasto aad dunida daafaheeda kaga nooshihiin qof walbana waxaan u rajeynayaa barta uu dunida kaga nool yahay in uu nabad qab iyo caafimaad ku joogo wax walba uu jecel yahayna alla weyne subhanahu wa ta'ala uu u fududeeyo adduun iyo aakhiraba inteena dhibatana alla weyne subhanahu wa ta'ala qabriga ha u nuuriyo inteena noolna Allah ha u naxariisto subhanahu wa ta'ala fadlan haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee aad soo booqato channelkan Hilaac Sool waxaan si xishmad leh kaaga codsanayaa inaad subscribe tiraahdo channelka isla markaana like taad igu dhiirigeliso gambaleelkana aad furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaalada aan soo gelina bartan isla markaana wixii ra'yi ah aad nagula wadaagto commentiga waxaan rabaa inaan ka yara hadlo video aan ku arkay TikTok-ta runtii wixii aan ra'yi ka dhiibanayo markaan videoga wada daawano kadib baan ra'yi ka bixin doonaa insha Allah idinkana waxaan idinka codsanayaa wixii ra'yi ah oo saxanaya aad aragtaan in aad igula wadaagtaan commentiga iyo wixii aan khalday intaba بدك جدي دراوش حس مصور بالروح وانت تليفون نسيتك بلايوها لا يسيتك بلايوها انت قبل هذا عسكر خليك تريد الدوامه دي شقيه اي الفرد اي فوق وانا قاعد ارجع الا يمكن بس هو كذا كفر جدي دراوش جدي جيسي انا حيبه دالي دش ورياي جيسنا كابدش دادني مانا كاده فليني مانا كودر دولسني مانا كودر عقل الله يا عقل الله ودا ادر اكو شيغيا وقادين حفينكي سيدكي دوريدا فاقم صديس انا هو حرامي دركت اميره waxaa ku leeyahay horta isir waa maguuraan oo suulasha laga dayaa runtii horta anigu waalidna caayi maayo qaabkaad u caytameysana caayi maayo waxa bahdil horta kuugu filan adoo ii door ah in aad dhulbaanta maanta wax ka sheegto runtii dhulbaanta wuxuu yahay waa la yaqaanaa oo awooyaasheen Allah subhanahu wa ta'ala jannadii firdawsaha ugu bishaareeyo qabrigoodana Allah subhanahu wa ta'ala ha u nuuriyo waxay nooga dhinteen taariikh isir maguurta ah oo aan weligeed tirtirmayn oo taariikh adag ah oo cid ka been sheegi karta aysan jirin halka adiga awooyaasha amiirow ay kaaga dhinteen cunsurnimo iyo faqash war adoo ii doora dhulbahantayna wax ka sheegtay iska daya dal lama shaacabi kartid oo taariikh kuma gaadid wadulbaanta waa kii dadka dhigay xaqiiq marka laga hadlayo waa kii ku dhisay maamulka Soomaaliland la yiraahdo waana ka ilaa hadeer ku maamula sharcigana isku maamushaan waa nimanka idin dajiyay baarlamaanka idin fadhiya waayo waa dhulbahante bal amiiro waxaad ii sheegtaa hal nin oo ii doora oo taariikh leh oo aqoon leh oo taariikhdu xusto hal nin oo kaliya anaga waxa fardahana saaray adigaanu ku xoreynayna cadow ka xoreynayna xaqiiq marka laga hadlo maantana dhulbahanta wax ku tahay caalamka oo dhan Soomaali iska daaye ilaa haddaan ba og waxa maanta idinka hortaagan aqoonsigan aad raadinaysaan iyo ciddu idinka xiran yahayna wiidan garanayna waa dhulbahanta marka iimaano amiirow inaad iska qayliso oo aad iska caydo maaha ee dib taariikhda ugu laabo oo la imow taariikh cad oo ii door wuxuu yahay soo sheeg oo taariikhda Soomaaliya meel uu kaga jira ii sheeg taariikhda Soomaaliya ii door bal meel uu kaga jiro
amiirow ii sheeg sida dumarkii ha caytamin cay maaha mar haddaad nin raga tahay oo aad rag wax ka sheegayso qaab ninnimo leh u hadal xaqiiqdu waa mid ah qaab hee ninnimo leh u hadal anaga maanta madaxayga kor hadduu u taagan yahayna awooyaashay baa ka dambeeyey soo warayso dadka adiga kaa waaweyn ee waalidka kuu ah dadka adiga kaa waaweyn ee waalidka kuu ah bal soo warayso cidda aad tahay iyo taariikhda Soomaaliya meesha aad kaga daalo seenta loodu meesha kaga taalo baad Soomaaliya kaga taalaa taariikhdeeda xaqiiq markaan kaala hadlo seenta looda meesha kaga daalo soo dabada ma bartaasad Soomaaliya kaga taalaa iidoorna waa nimanka ugu taariikhda xun uguna taariikhda hooseeya ee bila taariikh laawayaasha ah Soomaaliya marka la eego inteeda kale marka intaad caayada iska dayso anigu waxaan ku weydiinayaa waa laba su'aalood oo kaliya waxaan rajeynayaa fiidiyogan inaad amiir gaarsiisaan inaad fiidiyogan jarjartaan oo aad gudbisaan inta daawatay bal amiiro waxaad ii soo sheegtaa halka taariikh iidoor ay kaga jirto taariikhda Soomaaliya haba yaraatee taariikh yar ay Soomaaliya ku leedahay bal ii soo sheeg takala waxaad ii soo sheegtaa hal nin oo professor oo la yaqaan oo ama iska badaaba professor general oo la yaqaan oo aqoon leh oo iidoor war adoon waxba ahayn baad rabtaa rag kaa sareeya oo kaa taariikh horeeya oo maanta noloshaada iyo siyaasadaada gacanta ku haya inaad la xifaaltanto wardee dameerku yaa hadduu faras la daaqa maxaa la oran jiray baqal buu ismoodaa mise faras buu ismoodaa markaa dib ugu laaba taariikhda oo awooyaasha soo weydii oo wixii nool soo weydii ma garatay hal mid bay awooyaashii kaga dhinteen waa tamaanteedii ku qafilan waana faqash taariikhdii iidoorna SNM bay soo bilaabatay 1991 wixii ka horreeyay xagaad ku nooleedeen bal miis weydiisay horta wixii ka horreeyay xagaad ku nooleedeen miis weydiisay war wax xoolaa baa tahay taariikhda soo baro waxaan rajeynayaa inaan su'aalahan ku weydiiyo aad dib u laaban doonto aad baari doonto inkastoo aadan kaba helinba taariikh iidoor leeyahay buug qoranba haddaad ka heshan iyagoo buuraha saaran baad ka helaysaa wax kale ka heli maysa markaa rag kaa sareeya oo kaa aftahansan yaa oo kaa balaaqa dheer inaad afka la gasha maaha arrin kalena waan rabaa inaan ka hadlo rag iyo dumar isku jira oo soo hanjabayay runtii haddaanu nahay anagu beelweynta dhulbahante dumarka waanu ixtiraamnaa madaxayna noo saaran yihiin xaqiiqatan madaxa ayay noo saaran yihiin lamana caytanno dhibna uma geysano mana jeclin dhibaateynteeda runtii waxaa gobolka Sool ka dhacay waa gabar lagu dilay oo xiratay calanka Soomaaliland runtii aad baan uga xunnahay falkaas inuu dhacana maanan jeclayn runtii falkaasna kulley politics waa ka bixinaa waayo gabadh waa inoo wada dhaxdaa waa ina dhashay waana nala dhalatay gabadha waxaan leeyahay wax allaaliyo wixii ku soo gaadhay iskaga dulqaado biidmillaah dadka dhibtaa wadayna kulley dumarun bay ahaayeen marka halkaa waxaan ugala jeedaa waxaa weeye rag waxaan arkayay jooga Australia iyo Yurubta qayb ka mid ah oo u hanjabaya ninka la yiraahdo Abbas Madani oo qaarkood ay leeyihiin codadkooda waa duuban yihiin qofkii soo dila qarashkiisa ana bixinaya ninka waliba Australia jooga si live ah ilaa fiidoogiisu waa u duuban yahay mid baan ku leeyahay xaaji xiiraro
ما أنت عباس هدو درك أدنتو هدو درك أدنتو أتي إلهي وتمادو أجو أضاء قولان يوروبنا maaha Africa oo kale xaqiiq baan kala hadlayaa waa meel qofka uu xor yahay ra'yigiisa uu dhiiban karo oo dimuqraadi ah war wadankan joogo ama wadanka Yurub kamid ah qofku haduu doono madaxweynuhu caay kara halkaas uu camera la istaagay kara isuu doono caay kara cid ra'yigiisa ka hor iman karta ma leh khalad baad gasheen aad u weyn nimankiina dhaaranayay ta kale shacabka waxaan ka jaahil bixinayaa ninka la yiraahdo Cabbaas waa nin saxafi ah waa nin dhulbahanta ah dhaqanka dhulbahantana ee dumarka la dhibaateeyo kuma jirto xaqiiq markaa idin kala hadlo Cabbaas waad ku gafteen inta aaminsan inuu dhibta isagu ka dambeeyeen ana hadda idin le wallahi billahi tallahi inuusan ka dambeyn wuuna ka hadlay wuuna cadeeyay nimanka hanjabayo waxaan idin leeyahay haddii sida ugu dhaqsiyaha badan idan raali gelin hadalkii aad ku lahaydeen TikTok live idan ka soo bixin ogaada Cabbaas haduu maanta wax gaaraan in idinka dushiina ay tahay waxaan idin rajaynayaa dhamaan caafimaad insha Allah إلهينا هنوجر سيو فيديو xiga caafimaad qab sida ay